waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo wixii iigu daraa xabsiga aan kusoo arkay wixii iigu la yaabka badnaa xabsiga kusoo arkay habeenkii isniinta ahayd ayaa waxaa laga soo wacay degmada saldhigga degmada hodan taliyaha degmada wuu joogay wuuna khiyaamay alaabtii iga telefoonadii u qaaday waxaan ku sigtay xitaa inaan Soomaali ma ihi habeenkii qol madow oo maxaa la dad lagu xidhxidhay jiray oo waxa yaala qashinka iyo bahla galeenka waxa yaala aadan malaysan kareen baa runtii baa la igu soo xareeyay wallaahi been ma idiin sheegaaye waxba idin kama qaran ummadda Soomaaliyeed dhididkii aniga iga baxay shamiitada intuu ka qulqulay wuxuu u baxay ilaa banaanku qulqulay runtii oo banaanka biyo caadi ah subax ayuu ahaa oo xabsiga ma garanaysan qolka igu xidheen ninka sidaas ciqaabay asaga ayuu ahaa marka runtii markaan xasuusto wallahi wadnahaas kale noqonay wallahi marka runtii waxaan ilooben waxay ahayd 6 saac oo habeenimo ayaa la ila soo xiray marka ninka la ila soo xiray qof buu soo dilay waan ilmeeyay si kala noqday ani dhan waan isbedelay marka kabahayga kaba buudan qod way buux dhaafeen dhulkan ku daadinay caadi u socon banaanka xataa askarta subax way arkeen wuxuu arkay aniga oo runtii biyo badan iga socdaan markaasuu walaal cabdi wax walba ilaahay qadartiisa weeyaan aniga qof soo dilay ayaa kula xidhan isdaji buu igu yiri runtii marka waxaan sii cabdi dhaantow ilaahay noloshaada suu ku wada caawa ma wuxuu ku keenay qof bini aadam oo qof soo dilay oo dhig islaaman qaba ah